wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda madaxtooyada iyo dulista iyo hawada Soomaaliland ayaa maanta booqday dadkii ku dhaawacmay rabshadihii dhawaan ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Hargeysa oo hadda lagu daaweynayo cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. agaasimaha guud ee cisbitaalka Hargeysa Dr. Ahmed Umar Askar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda dadkii ku dhaawacmay rabshadahaasi. dadkii maartay rabshadihii dhawaan dhacay habeenkii dhaweyd dadkii ku dhaawacmay in aad ku soo siyaarataan cisbitaalka dadka tiradooda waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 8 inay ahaayeen hal qof oo markaa geeriyooday oo gabadha ayaa jiray waxa kale ugu cuslaa wiil isaguna markaa ay xabadu maartay calooshii inta kaga dhacday oo isagu ahaa kuwa ugu culus habeennimadii ayaa qaliin loo sameeyay isla habeennimadii markii la yimid shaqaalaha cisbitaalku waxay ku jireen ilaa intii doorashadu bilaabantay ma waxay ku jireen standby oo heegan bay ku jireen dhaawacii kale intoodii badneed way baxeen oo way sahlanaayeen dadka soo dhaawacmay xaaladaha degdega ah waxa weeyaan maanta cisbitaalka xukuumadda ee Hargeysa cisbitaalkeena nationalka waxa weeyaan waa free of charge. wasiirada dulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe arrimaha dibadda Dr. Saad Ali Shire iyo madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa iyaguna tacsi u diray helada dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay Hargeysa iyo Burco waxaanay ku baaqeen in nabadda la ilaaliyo. runtii waa baan uga xunnahay wixii dhacay dadkana sidaa agaasimuhu sheegay wixii loo qaban karayo waa loo qabanayaa biidnillaahi tacaala waxaanu leenahay umaynaan baahnayn duruuftaas oo kale in lagu dhacdo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynaynaa weydiisanaynaa intii ku geeriyootay inuu naxariis janno ka waraabiyo ehelkoodana uu ka siiyo samir iyo iimaan intii ku dhaawacantayna ma taqaana uu siiyo caafimaad si degdeg ah insha Allah biidnillaahi kariim. kullu waxa ka soo baxday halkan inaanu u baahanahay in looga baahan yahay siyaasiyiinteena bisayl siyaasadin looga baahan yahay maaha markasto aynu gollo doorasho amba arrin siyaasi u yimaado in shicibkeena iyo mataqaana iyo ciidankeena ay isku dhacaan maaha runtii waxa laga maarmaan oo aanu ugu baaqaynaa musharaxiinta saddexda xisbi qaran inay xakameeyaan taageerayaashooda cadadooda iyo caadifadooda inay dejiyaan oo wacyigeliyaan baa waajib ku ah. wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayay warbaahintu weydiisay sababta ciidamada loogu waayay inay isticmaalaan rasaasta rabarka ka samaysan iyo qalabka kale ee lagaga hortago rabshadaha intay isticmaalayaan rasaasta nool waxaana uu ku jawaabay sida tan waa ku talagalay in rabshadaha kaga hortagno qalabka noocaasa hase yeeshee marka rabshaduhu bataan qalabkuna iska gabaabsi noqdo qaran yagleelana aynu nahay waxa weeye duruuftu waxay keenaysaa muxuu ahaa in xabadda nool in mararka qaarkood inay adeegsadaan ciidamadu way keenaysaa ciidamadu ma aha sax inay xabadda dadka la dhacaan amar uma haystaan muxuu ahaayey tala saxana maaha badiyaa ciidamadu waxay xabadaha u adeegsadaan inay dul mariyaan dadka bannaanbaxayaasha ah. Xasan Galadon Cable TV Hargeysa.